kulanti wacan oo xiiso leh dhammaantiin ba khiyaartaha wadanaga daawanaysa daawadeel ku soo dhawaada barnaamijkeennii taariikhda raadraaca ummadda reer Somaliland ay ku leedahay dalalka reer galbeedka siiba dalalka Faransiiska iyo wadanka Ingiriiska. munaasabad ballaaran ayaa dhawaan ka dhacday magaalada Paris halkaas oo lagu xusay askartii reer Somaliland ee ku dhimatay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka ee u dagaalantay wadanka Faransiiska. dhawaan ayaa hay'ad sidoo kale urur laga dhisay wadanka Faransiiska oo ay dhiseen dhalinyaro reer Somaliland ah oo intellectual ah ay ku guuleystaan in ay markaas soo saaraan malafkii sidoo kale arkiibiyada taariikhda ummadda Somaliland ay ku leedahay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka taasoo ay cadaatay isla markaana ay soo saareen magacyadii goobihii Somaliland laga keenay askarta u dhimatay wadanka Faransiiska taasoo guul ballaaran oo ah dhammaan jahliyadaha Somaliland iyo guud ahaan qarannimada madax banaanida Somaliland. barnaamijkeena ayaa gabi ahaanba waxaan ku soo qaadanaynaa bal sidii ay munaasabadaasi xuska ah ay u dhacday iyadoo markii ugu horeysay shaariciyada waaweyn calanka jamhuuriyadda Somaliland iyo calanka wadanka Faransiisku iyaga oo isgarab socda ay ubax dhigeen goobtii loo qoondeeyay in lagu xuso askartii reer Somaliland iyo kuwii Faransiiska ahaa ee ku dhintay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka. munaasabadan ballaaran ee xuska loo sameeyay askartii ku dhimatay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka ee reer Somaliland ayaa waxa ay ka dhacday shaariciyada waaweyn ee magaalada Paris gaar ahaan goobta caanka ah ee daljirka Dahsoon oo ay sanadkii booqdaan in ka badan 3 milyan isla markaana ah goobaha ugu taariikhda weyn adduunka. munaasabadan ballaaran ee xuska ah ee ka dhacday magaalada Paris ayaa waxa ka soo qayb galay muwaadiniin reer Somaliland ah oo lagu xusay isla markaana loo xidhay shaariciyada waaweyn ee ugu caansan magaalada Paris in ay ka qayb qaataan munaasabada baroordiiqda ah sidoo kale xuska ah ee loogu talagalay askartii reer Somaliland. barnaamijkeenan ayaan gabi ahaanba arrinka aynu diiradda ku saaraynaa waxaanaynu hadda dhammaanteen aynu wada tegaynaa magaalada Paris daljirka Dahsoon iyo shaariciyada waaweyn oo calankii jamhuuriyadda Somaliland uu si weyn uga dhex babanayo shaariciyada magaalada Paris oo loo xidhay gabi ahaanba gaadiidkii si markaa loo xuso askarta wadanka Faransiiska u dhintay ee ka soo jeeda deegaanada Somaliland. taariikhda mugalle iyo xuska ka dhacay magaalada Paris aynu dhammaanteen wada daawanaynaa sida ay daawasho wacan. halkani waa faras magaalada Paris halkaas oo ay ciidamadu ay ka soo bilaabayaan socodkooda si ay u tagaan goobihii loo qoondeeyay in lagu xuso isla markaana la wax dhigo in ay askartii reer Somaliland si ballaaran loogu xuso munaasabadan iyada ah ee ay dawladda Faransiiska iyo ciidamada wadanka Faransiisku ay go'aanka ku gaareen in si ballaaran loo xuso ciidamada reer Somaliland ee ku dhintay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka. waxaad arkaysaan calanka jamhuuriyadda Somaliland iyo calanka wadanka Faransiiska oo isbarbar socda oo ay daba socdaan ciidamada wadanka Faransiiska iyo muwaadiniin reer Somaliland sida safiirka Somaliland u jooga wadanka Faransiiska iyo Ibrahim oo ah hay'adda dabagalka askartii reer Somaliland ee ku dhintay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka. shaaricani waa shaarica ugu caansan magaalada Paris halkaasoo si ballaaran loogu xusayo isla markaana loo xidhay sidii loo xusi lahaa ciidamadii ku dhintay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka. waa ciidamada wadanka Faransiiska oo bilaabay socodkoodii waxaana daba socda boqolaal muwaadiniin reer Somaliland ah oo iyaguna munaasabada xuska ka qayb qaatay iyadoo ay muwaadiniintani ay yihiin kuwii ehelkoodu ku dhinteen dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka isla markaana xuquuq ballaaran كل ودنك فرانسيسكا. calanka jamhuuriyadda Somaliland ayaa wuxuu ka dhinac babanayaa calanka wadanka Faransiiska halkan waa shaariciyada ugu caansan iyadoo halka arkaysaan maamuuska iyo sharafta loo sameeyay askartii reer Somaliland ee ku dhimatay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka. شارعاً أدركيسان وشارع ugu caansan magaalada Paris
halkaas oo gebi ahaanba maalinta laga xidhay gaadiidka si markaa loo xuso askartii reer Somaliland ee ku dhimatay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka. ciidamadan ayaa waxay u sii socdaan goobtii loo qoondeeyay in ubax dhiga lagu sameeyo isla markaana uu xusku ka dhaco oo ah taalada daljirka Dahsoon oo ay sanadkii booqdaan in ka badan 3 milyan isla markaana ah goobaha ugu caansan wadanka Faransiiska. calanka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa si weyn uga dhex babanaya shaaracyada magaalada Paris isagoo oo ku socda goobtii loo qoondeeyay in lagu xuso askartii kaga dhimatay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka ee u dagaalamayay wadanka Faransiiska. muusikada aad maqlaysaan waa muusikadii soo dhaweynta loo sameeyay ciidamada iyo calanka Somaliland iyo ka Faransiiska halkaas oo ay tahay astaanta qaranka wadanka Faransiiska in lagu maamuusay sidii loo sharfi lahaa askarta reer Somaliland ee ku dhimatay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka. calanka Jamhuuriyadda Somaliland oo ay gardaadinaysa muwaadiniinta reer Somaliland ah ayaa si weyn uga dhex babanaya isagoo oo ku sii socda si uu u xuso askartii kaga dhimatay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee u dagaalamay wadanka Faransiiska. xuskan ayaa ahaa mid si weyn loo soo agaasimay isla markaana meeqaan sare la gaarsiiyay in la xuso askartii kaga dhimatay reer Somaliland dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka taasoo ay noqonayso tani munaasabadii ugu ballaadhnay taariikh abid ee loo sameeyo askartii reer Somaliland ee ku dhimatay dagaaladaas. goobtani waa goobta uu ka dhacay ubax dhigo waana goob taariikhiya waxaana taasi muujinaysaa dalka Faransiiska iyo wasaaradda gaashaandhigga sida ay uga go'an tahay in ay xusaan askarta qiimaha weyn dhinacooda ka joogay ee ku geeriyooday dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka si ay u ilaaliyaan madax bannaanida qarannimada wadanka Faransiiska. waa ciidamadii salaan sharafta bixinaysay oo ay daba socdaan muwaadiniinta reer Somaliland ee lagu sharfay in ay ka soo qayb galaan munaasabadan aadka u ballaaran. waxaad arkaysaan ciidamada sida gaarka u tababaran ee wadanka Faransiiska oo salaan sharaf siinaya isla markaana xuska si weyn uga qayb qaadanaya waana ciidamada ay ku dhaartaan wadanka Faransiisku. calanka wadanka Somaliland iyo calanka wadanka Faransiiska ayaa haatan soo gaaray goobtii ay ka dhacaysay xusku oo ah goobta ugu caansan wadanka Faransiiska isla markaana ah goobta ay ku xusaan halyeeyadii kaga dhintay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka. wasaaradda gaashaandhigga wadanka Faransiiska ayaa meeqaam sare ku xustay askartii reer Somaliland ee ku dhintay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka taasoo u noqonaysa taariikh hor leh oo ay shacbiga Somaliland ay ka heleen wadanka Faransiiska isla markaana ay ku leeyihiin xuquuq aad u ballaaran. waa ciidamadii Faransiiska oo ay ku dhex jiraan dad muwaadiniin ah oo reer Somaliland ah oo si qunyar ah oo qurux badan u socda isla markaana ku sharfay salaan sharaf iyo xusuus aad u ballaaran saraakiisha sidoo kale askarta kaga dhimatay Somaliland
ee ku dhintay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka. ciidamadani waa ciidamada waddanka Faransiiska oo salaan sharaf siinaya goobtii ay ka dhacday baroordiiqda iyo xuska ballaadhan ee loo sameeyey askartii reer Somaliland ee ku dhimatay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka. munaasabadan ka dhacday magaalada Paris ayaa waxay noqonaysaa mid si weyn loo soo agaasimay isla markaana meeqaam sare gaarsiinaysa jaaliyadaha Somaliland ee ku dhaqan waddanka Faransiiska iyo guud ahaanba qadiyadda madaxbannaanida Somaliland. waxaa bilaabmatay munaasabadii baroordiiqda sidoo kale xuska loo sameynaya askartii reer Somaliland ee ku geeriyootay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka, halkaasoo ay shacbi weyne aad u fara badan ay si weyn u daawanayaan isla markaana ay si qiiro leh ay u xusayaan askartaan naftooda u horay sidii waddanka Faransiisku uu u noqon lahaa qaran madax bannaan. waxaa bilaabmatay munaasabadii xuska iyadoo oo ubax dhig loo sameeyey isla markaana dabshid loo sameeyey iyadoo ay ka dhigan tahay dabkaasi idinma ilaaweyna waxaanad ka mid tihiin halyeeyadii dhaliyay qarannimada waddankayaga ay ka dhigan tahay dabkaa dhacay. waxaana hadda ay si fiican u socdo munaasabadii baroordiiqda iyo xuska ballaadhan ee loo sameeyey askartii reer Somaliland ee ku dhimatay dagaaladaas ka dhacay adduunyada kii koowaad iyo kii labaad. waxaa isdhinac taagan calanka waddanka Faransiiska iyo calanka waddanka Somaliland oo labadaba ay kaga dhinteen askar aad u tiro badani dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka. waana calanka jamhuuriyadda Somaliland oo ku qoran tahay laa ilaaha illa allah muhammadar rasuulullah oo ka dhex muuqda goobta ay baroordiiqdaasi ay ka socoto. waxaanay noqonaysaa markii ugu horeysay ee dowladda Faransiiska iyo wasaaradda gaashaandhigu ay baroordiiqda aadka u ballaadhan ay u sameeyeen askartii kaga dhimatay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka. goobta ay munaasabadan ay ka dhacaysa ayaa ah daljirka dahsoon ee magaalada Paris, iyadoo aad arkaysaan muwaadiniinta reer Somaliland oo iyaguna si qiiro leh u soo dhaweynaya baroordiiqdan loo sameeyay muwaadiniintii reer Somaliland ee ku dhimatay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka. goobta xuskani uu ka dhacaya ayaa ah magaalada Paris ee waddanka Faransiiska, iyadoo halka protocol aad u sareeya loo sameeyay baroordiiqdan oo ay ka soo qayb galeen muwaadiniin fara badan oo reer Somaliland ah oo si weyn ugu qiiraysan sharafta iyo karaamada ay saartay dawladda waddanka Faransiisku in ay maamuusto isla markaana ay u qirato in muwaadiniinta reer Somaliland ee ku dhintay dagaalka koowaad iyo kii labaad ee adduunku ay xuquuq ballaadhan ay ku leeyihiin waddanka Faransiiska. qadar 5 daqiiqo ah ayaa loo aamusnaa askarta reer Somaliland iyo askartii Faransiiska ee ku dhimatay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka, iyaga oo markaa ku dhawaaqaya isla markaana qalbigooda ka leh
waxaad tihiin kuwa dhaliyey nabadgelyada iyo horumarka aanu ku tallaabsanay haddaan nahay waddanka Faransiiska. idinma ilaaweyno, waxaana tihiin haliyeeyo ku suntan taariikhdayada ay qalbiga ay ka leeyihiin dadka arkaysaan ee militariga ah ee sida weyn u soo dhaweynaya amaba xusaya askartii reer Somaliland iyo kuwii Faransiiska ee ku dhintay dagaaladii koowaad iyo kii labaad ee adduunka. askartii reer Somaliland ee ku dhimatay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka ayaa waxa ay ka kala yimaadeen gobolada ay ka kooban tahay Jamhuuriyadda Somaliland, iyadoo oo ay ururka dabagalka muwaadiniinta reer Somaliland ee ku dhintay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka ee u dagaalamay waddanka Faransiiska haatan arkiibiyadoodii ay soo saareen ururka dabagalka muwaadiniinta reer Somaliland. madaxdii ka socotay dalka Jamhuuriyadda Somaliland iyo waddanka Faransiiska ayaa waxaa lagu sharfay in ay si qunyar ay u soo socdaan iyaga oo wada jira oo isku xuquuq ah in ay markaa ay yimaadaan goobtii loo qoondeeyay inay ka dhacdo baroordiiqda aadka u ballaaran ee loo sameeyay labada ciidan ee ku geeriyooday dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka ee u kala dhashay dalalka Faransiiska iyo waddanka Somaliland, taasoo muujinaysa in waddanka Faransiisku uu haatan si ballaaran uga fakarayo muwaadiniinta reer Somaliland ee ku dhaqan waddanka Faransiiska xuquuqda ay ku yeelan karaan. guusha ballaaran ee ka dhalatay ama guusha ballaaran ee ay soo hooyeen askartii reer Somaliland waxaa bilaabmatay iminka baroordiiqdii oo ku baxaysa luqadda Faransiiska oo ay leeyihiin waxa aan maanta xusaynaa askartii inagaga dhimatay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka oo ah haliyeeyo taariikhdeena ku suntan. La tombe devant laquelle nous sommes réunis est à la fois le tombeau d'un soldat dont nul ne connaît le nom, waxay ahaayeen kuwa naftooda iyo dhiigoodaba u horay qarannimadan aynu maanta aynu haysanno. maynu haysaneen qarannimadan iyo horumarkan haddii aanay haliyeeyadaasi aanay godka inoo gelin. Que l'armée française a consenti durant la Première Guerre mondiale pour défendre la France. Les quelques 1 million maanta waxaynu isugu nimin in aynu baroordiiq ballaaran iyo xusuus u samayno dadkii inagaga dhintay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka. haliyeeyadaasi waxay ahaayeen kuwa dhaliyey nabadgelyada, dimuqraadiyadda, horumarka aynu haysanno haddaynu nahay waddanka Faransiiska. ma ilaawi doono, waxay ka mid yihiin kuwa ku suntan taariikhdayada. waxay yihiin kuwa aanu mar walba xusi doonno si wada jir ah annagoo isku duuban. Et dont le silence et le sacrifice font la grandeur, ne voit pas sa mémoire se perdre dans l'oubli, a été magnifié 3 ans plus tard. dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka waxay naga dhintay dad aad u tiro badan oo askar ah oo rayid ah. waxa ay noqonaysaa inaynu sanad walba aynu xusno si aanaynu taariikhdeena aadka u mugalle aanaynu u ilaawin. waxay ahaayeen geesiyiin ka kala yimi dalal aad u fara badan si ay u difaacaan qarannimadeenna iyo dimuqraadiyadda aynu haysanno ee aynu maanta ku naaloonayno ayaa ka mid ah ereyada goobta ka dhacay. Ces veuves de guerre et ces orphelins qui portèrent et continuent de porter le bruit de la victoire dans leur cœur et leur âme, afin que nous comprenions qu'aucune souffrance n'est vaine, quand le but est compris et partagé par tout un peuple. Cette flamme a dépassé le symbole de la fraternité d'âme pour devenir désormais. askarta reer Somaliland ee ku dhimatay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka ayaa waxa ay ka kala yimaadeen gobolada kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland, iyadoo oo lagu qiyaasay dad aad u tiro badan in ay ahaayeen. ururka dabagalka muwaadiniinta reer Somaliland ee ku dhintay dagaaladaas ayaa waxa ay soo saareen islamarkaana ay kala xiriireen wasaaradda gaashaandhigga in loo soo bandhigo magacyadii sidoo kale goboladii ay ka yimaadeen. qaar badan waa ay ku guuleysteen, waana ta sababtay maanta in calanka Jamhuuriyadda Somaliland iyo calanka waddanka Faransiiska oo isbarbar socda ay baroordiiqdan aadka u ballaaran ee ka dhacday magaalada Paris ay ka qayb qaataan. L'avenir de notre pays est à ce prix.
ciidamada wadanka Faransiiska oo ay dhinac taagan yihiin muwaadiniinta reer Somaliland ee ku dhaqan wadanka Faransiiska ayaa baroordiiqdan si wada jira uga qayb qaadanaya waxaana ka muuqata wajiyadooda naxariis duco in ay u ducaynayaan askarta guusha ballaaran ka dhalisay qarannimada wadanka Faransiiska. Le bataillon Somalis 14-18, le centre de formation initiale des militaires du rang de Montlhéry, la Fédération nationale des réservistes opérationnels et citoyens de la gendarmerie nationale, un détachement opération Sentinelle appartenant au waxaa maanta farxad noo ah in ay maanta baroordiiqda nagala soo qayb galeen muwaadiniinta reer Somaliland si ay nogala qayb qaataan xuska ballaaran ee aanu u sameynayno askarta nagaga dhimatay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka. halkani waa magaalada Paris waa faras magaalada Paris oo goobta ugu caansan ee ay ku caanbixeen wadanka Faransiisku waa daljirka dahsoon waa munaasabadii baroordiiqda loo sameeyay askartii kaga dhimatay wadanka Faransiiska dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka oo ay ku jireen askar reer Somaliland ah oo aad u tiro badan oo si mug iyo miisaan leh magacooda iyo sharaftooda kor loogu qaaday isla markaana ubax dhig aad u ballaaran loogu sameeyay goobtii ay baroordiiqdaasi ay ka dhacday. daawadayaal halka waxay noogu dhamaaday barnaamijkeenii raadraaca taariikhda Somaliland ay ku leedahay dalalka reer galbeedka halkaas oo aynu diiradda ku saarnay xuska ballaaran ee ka dhacay magaalada Paris. waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga soo jeedinaynaa ururada Somaliland iyo hay'adaha isku mashquuliyay in ay taariikhda mugalle ay ka soo saaraan wadanka Faransiiska taasoo shacabka jamhuuriyadda Somaliland aan ugu bashaareynayna in ay soo baxeen dhalinyaro aad u fara badan oo wax ku bartay dalalka reer galbeedka oo ka shaqeeya wasaaradaha arrimaha dibadda baarlamaanada goobaha go'aanka laga gaadho waana dhalinyaradii ku kortay wadamadan reer galbeedka oo runtii haatan u xuubsiibtay in ay qarannimada madaxbanaanida Somaliland siyaabo kale iyo taariikho kale ay u soo saaraan waana guul ballaaran oo soo hoytay shacabka jamhuuriyadda Somaliland waxaanu leenahay dhammaan shacabka ku nool wadanka Faransiiska hambalyo sida taariikhda mugalle aad uga soo saarteen arkiifyada wasaaradda gaashaandhigga iyo dawladda wadanka Faransiiska waanigoo awriye dalmar oo idin leh inta aynu aragtin noocan oo kala hawada isugu soo noqon doono saaxiibayaal sida iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.